dal dadkiisu in badan ay yihiin hoy la'aan markaad ka qiyaas qaadato in shantii qofba uu mid ka mid ahi aanu haysan guri ammaan ah dhul sugan biyo nadiif ah iyo koronto hase ahaatee dadkaasu ay leeyihiin niyad adag oo dib u dhis iyo rajo ku salaysan taasi waa sheekada ka jirta Soomaaliya waa sheeko barakac iyo dhibaato ka sheekaynaysa balse sidoo kale waa sheeko adkaysi hal abuurnimo iyo isbeddel wadata maanta waxaan doonayaa oo kale inaan idinla wadaago sida Soomaaliya ay uga dhigayso marka loo eego qaaradda Afrika oo dhan dalka ugu dhibaatada badan marka laga hadlayo dhinaca hoy la'aanta ama guryo la'aanta embedded in our national transformation plan and the European solution strategy as Somalia faces a housing deficit. Soomaaliya waxay wajahaysaa baahi guryo la'aaneed oo saameysay in ka badan 3 milyan oo ruux kuwaasoo gudaha dalka ku barakacay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo Garowe ayaa bil kasta waxay qaabilayaan kumanaan ruux oo iyagu cusub kuwaasoo ka soo barakacay deegaanadoodii koboca magaalooyinka oo gaaray in ka badan 4% sanadkiiba absorbing thousands of new residents every month with a rapid urbanization of 4%. The government of Somalia has developed a strategic intervention such as institutional and policy reform, public-private partnership and innovative financing, integrated urban resilience and European solutions. guushan ayaa astaan u ah dadaalka joogtada ah ee dawladda Soomaaliya ay ku horumarinayso istaraatiijiyadda qaran ee guriyeynta iyo dib-u-dhiska dalka iyadoo iskaashi dhow leh hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay UN Habitat. 31 bishii May ee sanadkan ayay Soomaaliya ku guuleysatay markii ugu horeysay kursiga golaha fulinta ee hay'adda UN Habitat. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho.